إذا ندونك ولا قوة تغيّا وحانا لو ذا الرميسية هذه الدار هي دار ممر وضا إنيتي وفق الصعد كاهي وضا وقاضه إني لم يتهي سؤاشا أدق أبا هنقف كستو بنادم ينسويديا وحيتي فماذا بعد الموت تنينات كتاقي سوى دوكتي وانا الله باه هورتانا دادكي صومري وكوضا تاقين محاق جيريدا كدنبايا إلهي وحو قرآنك كتل المامية قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم جيريدا كبحسان ساني كوردي سموه إذا لكل ميسا بنادم هو جيريدا ما تشعلا مالي يري مركا كو حنونتو حقا دختر كاتو عراريسا waxaad hanti haysato dhamad ku bixinaysaa waxa soo dhamina waa uun geerida bal hadaa dib u dhigi kartayna dib u dhigto ama inuu inaad ka baxsato ilaahina wuxuu leeyahay qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum wa idan la kulmaya geeridaasi maxaa ka dambeeya thumma turadduna ila aalimi al-ghaybi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun waxa ka dambeeya waxa weeyaan rabbi la isirtaago كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إذن جارده وحكدن باية والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى إلهي نتسرتاكت وحكدن باية وإما الجنة وإما النار ولذلك بقى إلهي وحين لي آيات كأنه مركز طبع آخرنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وارحد مننا بقى إلهينا لي إذن كانوا مسلمين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آذنه جيرده كور وريقه لكن وحي هذا أقرب شيء هو الموت وحكو قدوي وقيري أبعد شيء نبيد هذا هو الأمل والرجو يددك واتسين وران دونتا أرجى شيء في الحياة هو العمل وهو حد شغيسته لو قل رجاء بدني هاي وهو حد شغيسته دبا محاكو هرتاقن بنا آدمكو حقيقة دو أقي هينو الديار قروبه ولها هي الغفلة وحكوا وادينو ديدانين الديار قرونا والغفلة والدوهني وموغني وهذه الحقائق الكبرى اسمود موتسينية ربائنا نض حصوصا هذه ربائنا نض آخر حصوصا أدور ربائنا جنية النار حصوصا سادردد بهله وحلي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون إلهي وحوين لي يدتك وحكو سعود وهذا حساب تودي إن لقوا حسابنا أيوه حالك حسابنا أيوه وكستو برية دقيقة كستو كصامر تالو حسابنا أيوه waxaad qiyaastaa waxaad soo noolayd waxaad soo qabatay waxaad soo jirtay waxaad ku soo fakartay waxaad ahaan jirtay waxaad qabatay oo rabbu samaawaati wal ardi ku weydiinayo oo lagu yiri waliba ilaahay hortiisa ka dhaqaaqi maysid qadama abdin yawm alqiyama ma dhaqaaqayaan ilaa ya as'ilada la weydiiyo mooyaan ilaahayna wuxuuna leeyahay dadka xisaabtii way ku dhowday iyana waa ghaafiliin ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث حق الرب قودوا قما يمادو وانو عصب او إلهي دنكي سكتمي إلهي وحي مقلاني يقول ولي عيارتك وشربا إليه إلا استمعوه وهم يلعبون لقوه هذا وحي سو قادا يقول ولي عياريا ولاهية قلوبهم با إلهي سبحانه وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إذن أيها الأحبة آفاتك قوة وين كان إنو دتكو الديار نقوم وايو كانت دتكو إنو آخر حسوسا وايو كانت دتكو إنو حباشي أرك كري وايا
iyadoo dunida dadka hoose ka badan yahay dadka saaran magaalo kasta magaalada ka dhinac dhasan baa ka badan haddana bini aadamku inuu daaraha arkay xabaalaha arki kari waaya waa waxa jab qabta waxa dhinacaaga ku jira ee dad jiifa inaad arki kari weydo ee daarta ay kuu muuqataa waa mashkilad yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wahum can alaakhirati hum gaafiluun kuwa ilaahay ka gaaloobay baa ilaahay wuxuu ku tilmaamay daahirka noloshay garanayaan baa ilaahay yidhi ama aakhira iyo xaggeeda waa ka moogan yihin waa dhoohan yihin sida awgeed ayaa axadu saalixiin ay boqorradii muslimiinta nin ka midii wuxuu ku yidhi limaada nakrahi lmowt maxaanu geerida u nacnaa buu weydiiyey dabeetana wuxuu ku yidhi camartum addunya wakharabtum alaakhira watakhaafuna an takhrujuu min alcimaara ila alkharaab adduunkaa camirteen buu yidhi de shaqadiina shaqa adduun noqotay aakhirana waxba iskamaydaan horraysiinin marka waa loojik buu leeyahay inaad nacdaan inaad meesha camiran ka tagtaan oo meelaan waxba idinka horrayn inaad qabataan waa nacaysaan buu ku yidhi ayuha alaxiba bini aadamka wuxuu noqday fakarkiisu fakar adduunka maxaan qabanayaa maxaan helayaa maxaa ii soo gelaya xataa wa huwa yusalli xataa markaynu salaada ku jirno 5 daqiiqo aynu ilaahay is hortaagno 5taana waxaynu xisaabinaynaa adduun oo caqligeenna ku jira bale qad naxlamu biha waa ku riyoona bini aadamku waxa agtiisa yaalluunbu ku riyoona haddaad riyooyinkii saxaabada dib ugu noqotee nebigu fasiri jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam salaada subax markuu tukada ayuu wuxuu odhan jiray ma minkum ru'ya war xalay yaa wax arkay markaasay saxaabadu u sheegi jireen waxay arkeen dabeetana wuu u fasiri jiray riyooyinka haddaad dib ugu noqoto kutub alxadiid inta badan janno iyo naar iyo aakhire ka warramayaan inta ugu badan leh wax diin ku saabsan bay ka warramayaan waa nimankii aadaanka ku riyooday ee kan ku riyooday kan ku riyooday aakhiro innaga laakiin riyooyinkeenna haddaynu iswaraysanno nidhahno war bal